saldhigga ciidanka booliiska ee degmada Howlwadaag waxaa lagu soo bandhigay ilaa 4 dhalinyaro ah oo mooto bajaaj watay bastooladana ku hubeysnaa oo dhac u geysanayay dadka shacabka ee ku sugan xaafadaha degmadaasi iyo kuwa nawaaxiga la ah. sidoo kale saldhigga gudihiisa waxaa lagu soo bandhigay muqaadaraadka xashiishka oo dhowr qayb ah oo lagu soo qabtay howlgallo ciidamada booliiska ay sameeyeen iyo dhar kala duwan oo dad laga soo dhacay. afayeenka ciidamada booliiska Qaasim Axmed Rooble ayaana ka warbixiyay howlgalkan iyo waliba raggan la soo qabqabtay. abaaro 7 iyo barkii subaxnimo waxa ciidanka booliiska oo kaashanaya degmada iyo nabad sugidda waxay qabteen raggan aad u jeedaan oo isbaaro dhigtay una dhigtay dadka shacabka ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo ka isbaaraysanayay waxa la wixii ay haysteen lacag hadhiin mobile hadhiin lacagtii hadda waxay ba gashay mobileke waxaana mobile ah waxa lagu qabtay 4 wiil 4 ninkan wuxuu ahaa darawalkii mootadan ku aadan ayuu wadi nimankan dhalinyarada ah oo aad wajiyadooda u jeedaan waxay wateen bastooladahan aad u jeedaan hal bastoolad bay wateen waa runtiis weeye marka uu soo boodo uu yiri hal bastooladan wadanay waa runtiis hal bastoolad ay wateen bastooladaasay dadka ku isbaaraysanayeen dadka waxa laga isbaaraysanayay qof waliba wixii uu hayo intaan oo mobile ayaa lagu qabtay intaas waxa ka horeeyay mootadaas iyo mootadan aniga igu aadan dadkoodii waxay jiraan xabsiga la geeyay xashiiskan aad u jeedaan waa u jeedaan iskaashi aad buu u fiican yahay waa xashiish weeye xashiiskaas waxa laga soo dhigay oo loo soo macneeyay sidaan waxa laga dhigay bundad dhar ah dharka baatiga ah oo bundadaysan baa laga dhigay waana xashiish waad u jeedaan xashiishkii sidaasaa laga dhigay bundadaasaana laga soo dhigay mara caadiya oo baatiya oo duubkaasaa laga soo dhigay. 4 dhalinyarada ay gacanta lagu soo dhigay 3 kamida ayaa waxay sheegeen bastoolada ay wateen inuu lahaa askari ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliya isla markaana ay ku shaqaysanayeen oo markaas waday haye bastoolada yaa ka soo qaadeen nin askariya oo ciidankee weeye military waay marka asaga meel idin fadhiyay miya asaga meel idin ku sugayo meel idin joogay aan ku soo shaqeyn halkan waa saldhigga degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo isugu jira muqaadaraad bastoolado iyo moobelo la sheegay in dhalinyaro ay dhacayeen kuwaas oo loo adeegsanayay mooto bajaaj maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka soconayay dhibaatooyin loo geysanayay dadka shacabka. Cabdi Cays Abdullaahi Maxamed Cabdi Cays Somali Cable magaalada Muqdisho.